السلام عليكم أخيرا ومع العقال إن شاء الله تعالى وحن راه مقال كان إن كل وداقو لو قضب وآد إيا آد مهم ورنتي فهم كودا لباس قضب إيو دبقدو دا كعمل فالكودا إنانو مركز تمان كان كوها إنو أي نون قنيسو هرمر ونكسي نون قنيسو sidoo kale ogaanshaha in labadan shay ay xitaa ka qaalisan yihiin diamondka lacag kasta oo la siiyo ay nooga fiican tahay waan ognahay maanta wadankeena saboolnimada ka jirta dhalinyarada meesha xaaladeena ay marayso inaan wax kasta aan u sameeyno sidii aan dhaqaale u heli lahayn laakiin labadan qodob ee arabada ilaahay inay kula wadaago dhaqaale kasta way kaaga fiican yihiin oo runtii marka adiga ayaga faahantid oo aad ku dhaqantid ayaad insha Allah taala waxaad noqon doontaa qof ka maarma ama ka baxa saboolnimada iyo waxyaabahan dabcan sida adigu aad hirgelisid labada qodob intaan ku sheegin bal sheeko ay ku dhex jiraan baa rabaa ilaahay inaan soo qaato nin odaya ayaa wuxuu sameyn jiray inuu subax walba soo fariisto xeebta meesha badan dadku jimicsiga ay isku yimaadaan ayuu wuxuu dhihi jiray wax kasta oo aad u baahan tahay waad helaysaa ereygaas ku celcelin jiray wax kasta oo u baahan tahay waa helaysaa wax kasta oo u baahan tahay waa helaysaa dadku waxay u fahmeen marka inuu yahay ninkaan nin xanuunsan oo waalan oo ereygaas sidiisa iskaga celcelinaya maanta dambe waxaan maqlay nin dhalinyaro ah soo dhahaya wax kasta oo u baahan tahay waad helaysaa ninka dhalinyarada ayaa u yimid oo ku yiri qofka dhahaya wax kasta oo u baahato waa helaysaa ma adiga ahaa okay wax kasta oo u baahdo adiga miyaa isiinaya mase meel aan ka helahay ayaa ku ogtahay wuxuu ku yiri wax kasta oo u baahan tahay aniga ayaa ku siinaya waana helaysaa wax kasta oo u baahan tahay wuxuu yiri waxaan rabaa inaan noqdo nin ganacsada ah oo waliba ka ganacsada diamondka iyo dahabka macdanta alaabtaas qaaliga ninka ganacsada ayaan rabaa inaan noqdo marka macdan ayaan u baahanahay iyo diamond ayaan u baahanahay si aan uga ganacsado marka isibal adiga hadii wax walba oo u baahanahay aan helayo labadaas u baahay qabaaye balisi ninka odayga wuxuu ku jawaabay waxaan ku siinayaa labada shay aan sheegto waa ku siinayaa number 1 horta diamond baa ku siinayaa buu yiri diamondka aan ku siinayaa waxa weeye waa waqtigaaga inaad waqtigaaga ka faa'iideysatid runtada waqtigaaga dhumisid wax ku soo galaayo oo dhaqaale ah iyo hammi aad leedahay oo aad gaaraysaa ma jirto laakiin si kasto oo hamigaagu u ballaaran yahay ama waxyaabaha ay hiigsanaysi ay aad iyo aad u adagta in la gaaro kulama waqtigaaga ka faa'iideysatid oo waqtigeena aanu ka faa'iideysano waxaanu maalin walba u sii dhawaaynaa inaanu xaqiijino ahdaafteena dabcan qofkii waqtigiisa ka faa'iideysta mar buu noqon doonaa ilaahay ma qof dabaaldega oo ka shakeeya dhibaatooyinkii iyo waxyaabihii uu soo maray guulihiisa iyo maalin walba inta saac ee uu ka qaadan jiray uu ka shaqeyn jiray qofkii dabcan ku guuldareysto inuu waqtigiisa maamulo oo waqtigiisa sida saxda uga faa'iideystana mar noqotaba mar buu madaxa hoos u laalaadin doonaa oo ka shaqeyn doonaa sidii waqtigiisa uu ku dhaafay halida waqtiga waa xor waa free waqtigu waa iska free waa nimca ilaahay ku siiyay lacag lagaaga ma rabo adigu uun ka faa'iideyso isu ku dhaafi diamondka labadan ku siinayaa waxa weeye yiri dulqaad dabcan markuu qofku wax kasta uu yoolkiisa u yahay wax kasta oo qofku yoolkiisa u yahay marka uu yoolkiisa bilaabo oo rabo ilaahay inuu xaqiijiyo qodobka koowaad ee markuu waqtigiisa ka faa'iideysto laga raba waxa weeye inuu dulqaad yeesho hadii aan dulqaad lahayn wax yar oo waxba ahayn ayaad ku niyad jabaysaa markastoo aad wax biloodina waxaad noqonaysaa qof isla markiiba niyad jaba dabcan waxaan aragnaa dad badan oo dhibaato u soo maray inay guul gaaraan runtii maalin kasta waxaan aragnaa dad guul xaqiijiyay ayagoo wax dhaqaale aan haysan oo wax walba ka soo bilaabay eber ka soo bilaabay dabcan labada qodob ee ay adeegsadeen waxa weeye inay waqtigooda ka faa'iideystaan oo nolosha adduunka maanta ka soo helimaysid qof waqtigiisa aan ka faa'iideysan laakiin haddana qof wax noqday oo caalamka laga yaqaan ka soo helimaysid laba waxay noqdeen dad dulqaad leh oo ganacsigooda iyo waxa ay bilaabayaan u dulqaatay dib kasto ay ka maraan markii laga sheekeeyo taariikhyaha dadka guulaha gaaray aad ayaad u calxumanaysaa runtii dulqaadka ay sameeyeen marka akhyaaray waxaan ku soo gabagabeynayaa inaanu labadaas qodob fahanno oo ah dulqaad iyo waqtiga inaanu ka faa'iideysano waqtigeena waxaad ogtihiin in qiyaamaha waxyaabaha la kula xisaabtami doono oo kamid yahay waqtigu
intaasoo maqaal ama mowduuc ayaa laga yaabaa inaa bishii kusoo marto oo waqti ku saabsan. marka waqtigan aan ka faa'iideysano dulqaadna aan samayno. haddaad ku cusub tahay youtube-ka fadlan subscribe dheh, muuqaalkan like noo saara. aad baan u mahadsantihiin sida ugu xirantihiin youtube-ka Macalin Cigaal. insha Allah taala ilaa muuqaalka xiga. assalaamu calaykum waraxmatullaahi taala wabarakaatuh.